wasaaradda caafimaadka iyadoo muujinaysa yani wax ka qabadka xuquuqul jinsiga gabdhaha waxay sameysay qaybo u gaar ah oo aad iyo aad u quseeyo arrimahaas ka hortagga tacadiga jinsiga waxay wasaaradda caafimaadka si wacyigelintaas ay bulshada ciribta u tirto ama uga qayb qaadato waxay sameysay wacyigelin aad iyo aad u fara badan waxay tababartay shaqaale badan oo caafimaad ah waxay furtay xarumo badan oo lagu daaweeyo loogana hortago tacadiyaashaas haddii ay dhacaan gudub xuquuqda aadanaha waana gef waana ayaan darro anagu ka dowlad ahaan waxaa waajib nagu ah maadaama uu ku xadgudub baaxaddaas leh xuquuqda aadanaha qofka muwaadinka yahay waxaa naga go-an inaan jariimadaasi aanu si sharciyeysan oo la dagaalano intaa waxaa usii dheer inay cadaalad darro iyo gef ku tahay gabdhaheenna iyo haweenkeennaba haddaan ahay nin Soomaaliyeed waxaan aaminsanahay in aan cod buuxa aan arrintan uga hadalno aan isu taagno dhammaanteenba sidii aanu uga ciribtiri lahayn dhaqankan dalkeenna haddaad eegto mujtamaca Soomaaliyeed waxa ugu horeeya oo ayaan darro ah oo xun oo gabadh Soomaaliyeed ku dhaca marka ay dhalataba waa in lagu fuliyaa lagu sameeyaa dhaqankan waxaana la cadeeyay cilmi ahaan in aysan dhaqankan meelna ku lahayn diinta islaamka wax faa'iido ah oo caafimaad ah oo gabdhaheenna ay u leedahayna inaysan jirin taa ma isku raacsannahay marka maadaama ay caafimaad ahaanna faa'iido inoo lahayn waxyaabaha laga gungaaray oo meel fiican laga maraayo inay ka mid ahayd FGM-ka laakiin waxaan codsanayaa 98 inaysan ahayn lagu noqdo maaragtay assessment-gaas markii aniga markii la isoo guday oo walaalahay la guday oo hadeertaan familkeena badana aniga 3 gabdhood ay joogto mana la gudi doono haduu Ilaahay idmo familka iyo inta qof aan ogahay oo hore ugu baraarugsaneen oo hadda ogaatay oo gabdhahooda aan la taabanin ee la gudinna way badan yihiin wacyigelin badan waa la sameeyay sidii hore ma aha laakiin still wadamada uu aad u sareeyo anaga ku jirnaa marka waa wax u baahan inaan wacyigelinta aan ka wada shaqeyno waa ku mahadsan yihiin madaxda iyo maamulka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka wasaaradda dhalinyarada iyo sportiga sidoo kale wasaarada badan ay taabanaysa ma aha wax hal hay-adood ama hal wasaarad inay yani ka shaqeyso ay tahay waa ka wada shaqeynayna annaga dhanka wacyigelinta caafimaadka iyo daawada markay gabdhaha dhibka ku dhaco aad iyo aadaan ugu soo foojigsannahay waa la wada shaqeynaynaa wasaaradaha diyaaraan u nahay wax walba oo ka taabanaya khatar gelinaya caafimaadka ilmaheena gabdhaheena yaryar iyo hooyooyinka mustaqbalka waa waajibna wada saaran